السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا تاريخه جارك أها هاد بدنا عقوم العسين جرني تاريخ الصومالي ذا إنه جو أنت بدن مقالدة إن نقص علينا قرالة ذا لقد ياري تاريخ الصومالي ذا وأنك سوق قادرني هاد بوحي أي صومالي ذو أما ضدك كلا جانب تاهي أي كقرين قيبتا وحينكو يجدونا مهدوين كي تاريخيد حاجي موسى إجري حاجي موسى فارح إجري وحوها سركال الصوماليات أسرة أو ست توس وقت جيسي ولا شقين جري محميدي إنجليزكا وحاني درجتيس وقتigaasi ahayd major waa darajo sare oo ciidamada ah waxa uu ahaa xaaji Muuse Faarax Igare nin dagaalada hooda iyo nasiib ku leh oo inta badan dagaalada uu galo libinka keeni jiray kuna guuleysan jiray fagaarayaal fara badan oo ay dad ay isqabteen isku haleeleenna ka libin keenay ama guul ka haleelay sidaasi ayuu Ingiriisku ku aaminay inuu u yahay geesi ka libin keeni kara shaqada uu qabanayo ee inta badan la xiriiday hawlgalladii waqtigii mustacmaradihii fadhiyeen geeyiga Soomaalida ka hor inta aynaan u gelin duulaanka oo xaaji Muuse Igare ku qaaday saldanadii Yuusuf Keenadiid ee ka dhisnayd deegaanka Hobyo ee gobolada dhexe ee Soomaaliya waxa aynu isdul taagi doonaa qadar kooban siday ahayd xaaladda Hobyo waqtigii uu gacanta ku hayay Suldaan Yuusuf Keenadiid xukunkii Yuusuf Keenadiid ee Hobyo bal hadda haynu eegno Yuusuf Keenadiid waxa uu deegaanka Hobyo soo degay horaantii sanadkii 1885 waxaanu isla markiiba ku dhawaaqay inuu yahay suldaanka deegaankaasi oo ah dhul Soomaaliyeed oo kulaalaya badweynta Hindiya ahna deegaan istiraatiiji ah Yuusuf Keenadiid markii hore waxa uu ka yimid gobolka Bari gaar ahaan deegaanka magaalada Boosaaso oo ah magaalada ku caanka ah magaca caan baxay ee Bandar Qaasim ugu horeyntiiba Yuusuf Keenadiid waxa uu xidhiidh la sameeyay boqorkii jasiiradda Sinsibar ee la oran jiray سعيد برقش oo gacanta ku hayay maamulka Kismaayo ilaa Banaadir inta u dhaxaysa Siciid Barqash wuxuu u soo diray caawimo iyo la taliyaal ugu yimid Hobyo Suldaan Yuusuf Keenadiid waa ka hor intii aanu gumaystihii Talyaanigu soo caga dhigan geeyiga Soomaaliyeed markii dambe waxa uu Suldaan Keenadiid soo dhaweeyay Talyaanigii qaybta u helay inuu gumaysto Soomaaliya bartamihii sanadkii 1890 ayuu barsaabkii Talyaaniga ee waqtigaasi oo la oran jiray Vincenzo Filonardi waxa uu hubsiiyay Suldaan Keenadiid markii uu hubkaasi helay wuxuu awoodiisii ku balaadhiyay Suldaan Keenadiid deegaamada xarar dheere ceelbuur dhuusamareeb ilaa gaalkacyo dadkii deegaamadaasi ku noolaa ee Soomaaliyeed ayay ciidankii suldaanku kadeed iyo dhibaato aan la soo koobi karin kula kaceen sababta uu Talyaanigu hubka u siiyay Keenadiid ayaa ahayd inuu wax kala qabto qabaa'ilkii ka soo horjeeday gumaysiga Talyaaniga Suldaan Yuusuf Keenadiid wuxuu sidoo kale xiriir hoose la lahaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan darwiishkii caanka ahaa ee Soomaaliyeed ee isaguna halganka qaraar kula jiray maxkamiyadii boqortooyada Ingiriiska daawadayaal bal haynu dib ugu noqono duulaankii Muuse Igare ee Hobyo Ingiriiska oo qaba hadaba tuunka ah inuu Suldaan Keenadiid xiriir hoose oo taageero la leeyahay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan shakiga Ingiriisku ka qabay Suldaan Keenadiid waxa sii bari taageeray mar uu Talyaanigu xiray suldaanka iyo inankiisi oo lagu magacaabi jiray Ali Yuusuf ayuu sayidku shuruud ku xiray inuu la hadlo Talyaaniga ilaa uu soo daayo suldaanka waxaanu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waqtigaasi ku geeraaray Talyaani koofiyad weynow dabadeed aad kalaanto kaftankii aad shubtee Keenadiid ma wada kadib waxa la qorsheeyay in weerar lagu qaado xaruntii Hobyo oo uu deganaa Suldaan Keenadiid hawlgalka weerarka waxa loo xil saaray Major Muuse Igare oo ahaa dagaalyahan guulo istabajooga ka soo hooyay dhowr dagaal oo uu hogaaminayay Muuse Igare waxa uu soo bandhigay qorshe dagaal oo sidan u dhignaa kow in marka hore dadka deegaanka la hubeeyo si ay u caawiyaan ciidanka uu wato Muuse Igare laba in markab hub iyo ciidan sida la dejiyo dekada Hobyo si ay ciidankaasi afantari ahaan dhulka uga weeraraan xarunta suldaanka qodobka saddexaad in weerar ku dhaco waqti hore oo salaad subax ah daawadayaal qaybtan taariikhda aynu ka warrameynay waxaynu ka soo qaadanaynaa qoraale laga diyaariyay waqtiyadaasi oo uu ururiyay injineer Yuusuf Culusow sanadii u dhaxeeyay 1995 ilaa 2000 waa qoraalada uu ugu magac daray Igare and the Battle of Hobyo markii uu Major Muuse Faarax Igare qorshihii u soo bandhigay Ingiriiska markiiba Ingiriisku uu ku qancay General lagu magacaabi jiray W.H. Manning oo ahaa taliyihii guud ee hawlgallada Ingiriiska ayaa arrintan aad ula dhacay Generalku wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay dagaaladii lagu qaaday xarumaha daraawiishta sanadkii 1903 waxaana la gudagalay fulinta weerarkii markii ay hadaba markabkii iyo ciidankii saarnaa gaadheen deegaanka Hobyo ee ciidankii deegaankana hubkii loo qaybiyay ee dagaalka la fahansiiyay ayuu dagaalkii bilaabmay waqti hore oo salaad subax ah ciidankii afantariga ahaa ee lugta ahaa ee markabka saarnaa ee uu horkacayay Major Muuse Igare iyo kuwii deegaanka ayaa markiiba dagaal culus fooda isku daray
goobihii laga difaacayay xarunta suldaanka. markabka ayaa isna madaafiic hadhka kaga dhigay qalcaddii uu suldaanku ka deganaa deegaankaasi. dagaalka ayaa socday muddo 3 maalmood ah oo xidhiidh ah. aakhirkiina waxaa agta la mariyey xaruntii suldaanka. maxaabiis tiro badan ayaa lagu qabtay xaruntii suldaanka, kuwaasi oo isugu jiray qaraabada suldaanka iyo rag shisheeye ah. Major Muuse Igarre ayaa amray in dhammaan maxaabiista la sii daayo marka laga reebo suldaanka oo isaga la xidhay. daawadayaal, rag shisheeye ahaa ayaa lagu yidhi qoraalkan waxaa dib loogu celiyey dalalkii ay u dhasheen, waxaana ku jiray kuwa u dhashay jasiiradda Zanzibar oo Siciid Barqash ka talinayay waqtigaasi. Muuse Faarax Igarre wuxuu maamulkii Hobyo ku wareejiyey dadkii deegaanka kadib markii xoog lagaga saaray Suldaan Keenadiid. Suldaan Yuusuf Keenadiid ayuu xidhay Muuse Igarre. halkaasina waxaa ku soo afjarmay Keenadiid iyo awooddiisii. daawadayaal, qaybtaasina halkaas ha inoo joogto. qaybahan waxa wax ka qoray Cabdilqaadir Daa'uud Maydhane oo buuggiisa ku qoray buuggiisa lagu magacaabo The Somaliland Camel Corps bogga 144aad, iyo sidoo kale taxanayaal uu ka diyaariyey arrintan injineer Yuusuf Culusow intii u dhaxaysay sanadihii 1995 ilaa 2000.